waxyaabo caanka ku ahaa waxa ka mid ah bay yidhaahdaan ballanka ma aqoon baa la yidhi hadduu cid dawladda heshiis la galo inuu la galay iyo inaanu la galin qiimo badan uma kala dhaxaynin sideedaba ragga xoogga waaweyne ballanka ma jecla haddii aan aakhiro qofku aanu ka baqaynin iyo rabbaa ku xisaabiyo qiyaamaa jira iyo waa la isqabsanayaa sideedaba ninka xoogga weyni ballanka marmarsiiyo uma waayo lagu buriyo waxaan isku dayayaa markaa galabta inaan soo bandhigo haddii ay suurtowdo burburkii dawla alkhawaarzimiya iyo si uga takhallusay xaguu ku socday filosofigiisu muxuu ahaa ma khilaafada cabaasiyiintu marka hore ku socday sidaa waa la sheegaa laakiin waxa macruufa uun ninka kani si kasta uu u fakerayay dawlad xooggan baa dhinaciisa iyana jirtay الدولة الخوارزمية والدولة حكومي جرتي أفغانستان أوزبكستان تركمانستان كازاخستان طاجكستان باكستان هي قيب إيران كميدة انتاسو يسكو هيستي الدولة الخوارزمية ومسلمة عاصمة ديدون مقالة أورجندا الله يراهدو أورجندا تركمانستان ميكو تالي عاصمة أي يالكا واحد لبدا ودن وحكا دحيي حسن الجوار si nabadgelyaa in loo wada deganaado jankiskhaan laftiisu bariga xasilintiisa iyo dawladdiisa dhisideedii ayuu mashquul ku ahaa china iyo dee kuuriya iyo indho yaroo dhan inuu ka takhalluso laakiin wakhtiyada ka mida unbaa waxaa dhacay waxaan laba filaynin isna marmarsiiyo u noqday waxaa dhacay dawla alkhawaarzimiya magaalo otrar la yidhaahdo oo bariga ku taalla xagga china u dhow ninkii xaakimka haystay labada dawladood maadaama heshiiskani uu jiray tujaarada ayaa si fiican ugu kala socotay baac mushtarkaa mari jiray xaakimkaasaa wuxuu qabtay tujaar mongolianisa tujaar maguulkii ka mid ah ama tataarkii ka mid ah dabeetana tujaartii oo dhan buu laayey waa ballan furiyo sida u taalla taarikh yahanadu sababo badan bay sheegaan qaar baa idhaha jawaasiis bay hayaan qaar baa idhaha maye isagaaba cid hoosta ka laysa u soo daray waxaasi waa iska mala awaallo qaar baa idhahdeen radin baa jirtay oo marka hore iyagu wax boobeen dabeetana waa loogu abaalguday waxaasoo dhan waa wax iska qaldan bale waxaan odhan karnaa waxay khilaafsantayba xadiidkii nebigu abu daawuud xadiidkii warinayay sheekh alalbani xasan ku tilmaamayo ee uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dacu lxabasha maa wadacuukum watruku tarka maa tarakuukum waa xadiid xasan oo nebiga ka sugan nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam war xabashida iska daaya inta idin daynayso xabashidu inta ay idin dayso idinna iska daaya waxaa kale uu nebigu xadiidkaasi ku tilmaamay dadka tarkiga la yidhaha ama turkiga la yidhaahdaa turkigu waa qabaa'ilkan bariga oo dhammi ciddii ay ka soo jeedeen markaas ma aha atractan oo qura atractan asalkii iyana xaggaasay ka yimaadeen taarikhyahanadu waxay dhahaan kuwan oo dhammi tarkigaasay ku jiraan watruku tarka maa tarakuukum ma dhicin jinkis khaan waraaq buu soo diray uu boqortooyadii khawaarzim maxamed ibnu lkhawaarzim shaah ninkii la odhan jiray madaxda ka ahaa uu soo diray isagoo le nimankii laayay tujaarta gacanta ha layga soo geliyo boqorkan qaybta muslimka haystaana wuxuu yidhi maya annagaa maxkamadaynayna haddii ay jirto xagga iyagaa lagu maxkamadaynaya waa sida taarikhyahanada qaar sheegaan dabeetana umay cuntamin jinkis khane wuxuu yidhi cid buu soo diray wuxuu yidhi ha la soo dhiibo boqorkii xaggan haystayna boqor dhul badan qabsaday oo laftiisa aan isbidistu ku yarayn buu ahaa ninkii uu soo dirayba wuxuu yidhi isagana ha la dilo awal waxaa la isku haystay rag tujaaroo la laayay oo ha lay keeno iyo halka ha lagu xukumaa la isku hayay oo tii afghanistan oo kale dabeetana waxaa la yidhi maye kiina wuu dilay jinkis khan marka kan wuxuu u diyaar garoobay markaa dagaal
waa iclaani xarb labadii dowladood dagaal baa loo diyaar garoobay jenkis khan ciidan aad u tiro badan buu soo kaxaystay moxamed ibnu khawarzim shaah ninkan la yidhaahda ee dowladda tan xukumaana isna ciidan buu soo urursaday magaaladii arjanda wuu ka yimi isna bariguu soo kacay laba ciidan oo aad u tiro badan baa la iskala hor yimi waxaa la isugu yimi webiga siixoon taarikhyahanada muslimku ay yidhaahdaan sardariya qolada kalena ay ku tilmaamto waa dowladdan kazakhstan la yidhaahdo dhex mara goobtaasaa labadii ciidan isugu yimaadeen dagaal adag baa dhex maray muslimiinta oo qura 20,000 baa ka geeriyooday baa la yidhaahdaa dagaalka kan 20,000 oo muslima ayaa lagu waayey tataarka ama mongolianiskana waxaa la yidhahdaa in ka badan ayaa iyagana ka dhimatay 4 maalmood baa la isjafayey oo dagaalkani socday dabeetana markii uu dagaalku adkaaday ayaa dib loo kala yaro gurtay labadii ciidan dhimashadii baa ku badatay dhaawacii baa ku tiro batay dib baa loo kala gurtay wakhtigii dib loo kala yaro baxay ayuu boqorkii moxamed ibnu khawarzim shaah wuxuu u fakeray fikrad qaldan taktiik qaldan ragga badhna waxay yidhahdaan akhlaaqiyan qaldan oo ah inuu insixaab sameeyo goobta inuu ka guuro dabeetana cawaasimta magaalooyinka waaweyn inuu ciidamada dhigto oo ilaashado isaga iyo ciidankiisa inta ugu badanina caasimaddii inay ku noqdaan caasimaddii markaa galbeed waqooyiyo fog bay ka xigtaa meesha la isku dilaya waa ka durugsantay ciidankiisii dib buu u kaxaystay wuxuu kaloo ku tala galay inuu dee ciidamo kala soo urursado o badsado laakiin waxaa jirta isaga iyo muslimka ay isugu dhow yihiin colaadaha dhex taagan iyagana khilaafa alcabaasiya xaggeeda ciidan kama helayo dowla salaajiqa waxba kama helayo gawriyiinta waxba kama soo helayo طaa'ifa alismaaciiliya waxba kama helayo hareerihiisa duwalka ka xiga la iskuma fiicna aطraafi dawla ciidamo saasiya kama soo helin waayo ciddii hareeraha ka xigto o dhan waa la ishayey muslimku hadduu ishayana ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum waاصbiruu ina allaha maca asaabiriin rabbi wuxuu leeyahy subxaanaه wa tacaala ha isqabanina oo haddaad murantaan oo isqabataan oo nisaacu dhexdiinna ka dhaco waa fashilaysaan dowladnimadiinna iyo xooggiinnuna waa tegayaa baa ilaahay yidhi waاصbiruu ina allaha maca asaabiriin baa ilaahay leeyahy bini aadam hadduu wax wadaago xagxagasho iyo isqabasho lama waayo laakiin ilaahay wuxuu leeyahay sabirka ogaada laba hadday isqabataba aan kala yaacnadu waxba ma tarto waa dhaqanka ilaa hadda muslimka dhex yaallaad mooddaa laba hadday isqabato wadaad iyo wabiinba isku dar laba wadaad hadday masaajid isku qabtaan waa la kala guuraantee cidda kalena maxaad u malayn wadaad iyo wabiinba isku daro dhaqanku wuxuu u yaallaa qaaba haddii laba muranto in la kala yaaco caalamulislaami qaabkaasoo kale u yaallay bal inay iscaawiyaan daaye dagaallada tataarku marka ay yaro damaan iyagaa weerarka isku sii qaadi jiray midba ka kaluu is odhan jiray inta aad wax ka sii xoraysatid nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam axaadiista ka sugnaatay ee saxiixu muslimka ku taalla rabbi markuu wax weydiistay ilaahay wuxuu u ballan qaaday inaanu ummadda muslimiinta cadow ka xoog bata oo bannaysta walow dunidoo dhammina haysu tagtee inaan marnaba alla ku sallidaynin ilaa iyo inay iyagu yihiin kuwa isjafaya ee iniba inta kale gumaadaysa mooyaane waa xadiid nebi moxamed ka sugan calayhi salaatu wasalaam boqorkani wuxuu ka fekeray markaa carruurtiisii iyo reerihiisii iyo ciidankiisii iyo wixiisii inuu aad u ilaashado
oo aan dhibta badani soo gaadhin. haddii uu ciidamadii meeshii kala baxay Genghis Khan maxaa laga rajaynayaa marka? hadday u bilaabantay shaqadiisii rasmiga ahayd marka. Genghis Khan ciidamadiisii buu soo dareeriyey, Uzbekistan buu soo galay, wuxuu yimi cawaasimta muslimiinta wakhtiga kan dunida magaalooyinka ugu waaweyn ah. yacni taariikhdii hore marka la eego dowladahan reer galbeedka iyo caasimaadkoodu waa shalay. shalay bayaan ku odhanaya indiya goormuu tegayey ingiriisku. waa ku axad Britaniyin ka soo warramaya wuxuu yidhi magaalo ku taalla indiya muslimiintu markay xukumaysaya Murshadabaad baa la yidhahdaa ayuu tegey. markaasuu wuxuu soo diraya uu leeyahy Murshadabaad baa ka weyn London kana dhaqaalo badan. kaliba oday kaloo faransiisaa tegey, markaasuu yidhi magaalaan tegey godadkii dahabkee dunida aad mooddo in iyada to lagu guray. idan shalay ahayd Baris iyo London iyo waxa kani cawaasimtii dunida wakhtigaa ugu waaweyneed kuwaasi muslimku degan yahay buu ahaa. Bukhaari markaa waxay ka mid ahayd magaalooyinka ugu waaweyn. 616 hijriyada markay maraysay ayuu ku sameeyey xisaar. magaaladii buu la go'doomiyey. magaalada waxaa jooga ciidan badan oo ninkii kaga tegey, ciidamadii uu qaybqaybinayay oo meelahan kaga tegay ciidan badan baa jooga. laakiin dadku qalbigay ka dagaalamaan. qofku hadduu qalbiga ka jabo waxaad mooddaa inaanu wax badan iska celinin. waxay dalbadeen dadkii meesha joogay iyo wixiiba inay isdhiibaan, laakiin muqaabil ilamaan calanka cad baanu taagaynaa laakiin nabadgelyo hana la siiyo. dadkii badh baa caynkaa yidhi, badhna waa diideen. magaaladii markay isqabatay qolo le aan isdhiibno ciidankan intaan leeg boqorkeenniba tegiya oo iska celin kari mayno, iyo qolana aan isdifaacnay noqdeen. waxaa xoog batoo tiro batay qoladii lahayd aan isdhiibno, qoladii lahayd aan isdifaacno. qalcad weyn oo magaalada ku dhex taalla ayay galeen. dabeetana ciidanka intii qalcaddaa gashay waxaa ku darsamay culammadii iyo fuqahadii iyo dadkii waxgaradka ahaana qalcaddii bay ugu tageen. dadka intii ugu tirada badnaydna waxay idhahdeen ma tataar baa la iska celin karaya, aan isdhiibno. way isdhiibeen. Genghis Khan dhaqamadiisii u yaqaanu markaan ku dhaqma. qoladii isdhiibtay wuxuu yidhi ammaan baan idin siiye, maxaan samaynaynaa markaa? qolada kalean weeraraya. albaabaday u fureen, magaaladii buu soo galay. qoladii isdhiibtay wuu iska daayey. wuxuu yidhi idinku rag fiican baa tiina waa isdhiibteen, haddaba dagaalkaynu wada gelaynaa, qolada kale ayla weeraraysaan. waxaa bilowdaan dhufaysyada iyo khanaadiqda iyo waxaan ay qoteen iyo meelaha kan idinkaa kala garanaya ila dumiya. muslimkii xagga kani waxay u eegyihiin muslimkii deganaa maxay Afghanistan waqooyigeeda iyo akraadii Ciraaq iyo shiicadii Ciraaq baabkii oo kale weeyaan. waa lala jafay. markii la jafay 10 maalmood ayuu xisaar ku hayay, go'doomin qalcaddaasi ama dhufayskaa weyn. 10 casho kadib ayuu jabsaday. dabeetana wixii ku jiray midh lagama sii dayn, waa la gumaaday. markuu qoladii gumaadkooda ka soo jeestay ayuu dib u soo noqday. magaalada intii kaleba wuxuu yidhi codsi, wixii magaalada dhaqaale yaalla ha la soo saaro, dahabka iyo kunusta iyo fidada iyo wixii aa meesha ku haysateen, intaasaan rabaa buu yidhi ha la soo saaro. waa la cabsanayaa. wixii ciidanka hadhsanaa raggii yidhi intii tidhi aan dagaalanayna laga takhallus. intani waa intii awalba isdhiibtay calanka caddi dhiibatay. xoolihii baa loo keenay. magaalada wixii dhaqaale yaallayna waa kan baa la yidhi. markuu dhaqaalihii isku hubiyey ayuu ciidankiisii wuxuu yidhi waa fasaxantiin haddaba, waa fasaxantiintu, waa yaan waxba laga sii daynin.
bukhaara siday u dhammayd dhiiggaa dhegta loo daray gowraca magaaladii dhammayd waa la laayey hantida intuu isagu qaatay mooyaane askartii baaqigii baa lagu sii daayey waa la waday magaaladan iyo siday u ekayd ibnu kathiiroo ka warramaya wuxuu leeyahy faqataluu min ahlihaa khalqan laa yaclamuhum ila allah waxay laayeen buu leeyahay dad aan tiradooda alle mooyaane cid kale garanaynin carruurtii iyo dumarkii waa kaxaysteenoo waa fara xumeeyeen bale dumarka reerka ragga hortiisa dumarka lagu fara xumaynayay xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo maxaa la yidhahdaa hablihiisaba hortiisa lagu fara xumaynayay ciddii madaxa ka yara taagta ama isa soo taagtaana madaxa laga jarayay markuu magaaladii wixii adduun yaallay qaatay wixii rag joogay dilay wixii dumar joogay la fara xumeeyey ayuu yidhi haddaba baxa baaqigiina wuu gubay baaqigiina wuu gubay bukhaara intii dagaalantay iyo intii isdhiibtayba waa dhimatay magaalada bukhaara la odhan jiray intii dagaalantay iyo intii isdhiibtay labadiiba waa dhinteen wa nuhlik wa fiina an nahlaku wa fiina asaalixuun xadiidkii saxiixa muxuu lahaa nabigay weydiisay mayaanu halaagsamayna mise waana la halaagaya iyadoo dadka saalixiintii nagu jiraan qaala nacam idaa kahura alkhabth buu nebigu yidhi xumuhu hadduu bato haa waa laydin wada halaagaya markuu bukhaaro dhulka la simay buu dhaqaaqay isagoo ciidankiisii wata wuxuu qabtay magaalada ku xigta samarqand samarqand waa magaalo weyn oo zabakistan meesha nimanka la yidhaahday ku taalla waa magaalooyinkii muslimiinta ee caanka ahaa waa samarqandiya agagaarkeeda maalan suqdatu samarqand taarikhda waa ku aragteen waxay yidhahdaan jannaatu dunya arbaca baa la odhan jiray jannada dunidu waa afar baa la odhan jiray suqdatu samarqanda baa ka mid ahayd afarta la tirin jiray suqdada la sheegayo waa tuulooyinka magaalooyinka yarar ku xeerxeeray samarqanda waxay idhahdeen 5 maalmood oo aad dhan kastaba u socoto 5 maalmood socod ah ayaa beer iyo bustaan iyo dhul cagaaran ahaan jirtay waxay idhahdeen meesheeda sare haddaad korto abidkaa saxaare iyo meel xun ishaa qaban mayso webiyadaa wada dareeri jiray dhul aad u qurux badan buu ahaa dad aad u tiro badanoo muslimiin inay degan yihiin magaalada bukhaara wixii uu laayay mooyaane wixii uu soo kaxaystay maxaabis buu soo kaxeeyey ibnu kathiir maxaabis ibnulahir aan idhaahdo ibnulahir maxaabistaa markuu ka warramayo wuxuu leeyahay qofkii daala inta lagu soo socdo bukhaara iyo loo kala socday qofkii daala ama socon kari waaya waa la dilaa inta kalena waa la raraa waa inay socotaa haddaad daasha oo adda wax lagu dhibo ama qaadi kari ama socon kari waydana waa lagu dilaya dee dadkii dilka ay ka cararayaane qofkii ku ruushin karaaba waa soo socday samarqando markii loo soo dhowaadayba wuxuu rabaa inuu reer samarqando bajiyo inta aanu dagaal la gelin maxaabistii muslimiinta intuu qaybqaybiyey ayuu 10kii walba calan buu u dhiibay kii ah calamadii tataarka ah 10kii qofba calan buu siiyey waxay reer samarqando arkeenuun waddan dhan oo calankii wada sita oo soo socda waaba muslimiintii maxaabista ahayd kuwan calanka sitaa ciidamadiina waa ka sii dambeeyaan markii meeshii uu arkeen dadkii haziima nafsiya baa ku dhacay qalbi jab maxaabistii wuxuu ku qasbay inay dagaalamaan haddii kale waa laydin laynayaa buu yidhi ciidankiisa qoladii gamuunlayd ahayd ama waxganaysayna wuxuu yidhi nin walba maxbuus qabso kaxayso gaashaanku waa isaga isu dhig dabeetana gamuunkaagana rid kanna ku beegnow hadduu nuuxnuuxsadana gowrac waxaana yidhahdaan shield bashariya yacni dad lagu gabbado ayuu baaqigiina ka dhigtay magaalada dacalkeedii markuu soo gaadhay si magaalada loo argagaxgeliyo wixii intaasoo dhan ka soo badbaaday magaalada dacalkeedii markii uu yimina wuxuu idhi ku hor gowrac magaalada baaqigiina halkaa birta lagu mariyey reer samarqanda markaa naftii baa isugu timi reer samarqanda naftii baa haysata
reer samarqanda waxay isku dayeen boqorkii meesha maray 50,000 oo askari buu u sii dhigay oo uu meeshan kaga tegey 50,000 ee askari ee meesha joogay ee madaxdoodiiba ka tagtay iyana waa cabsadeen tiradu wax ma tarto ee dadka tayadiisa iyo iimaankiisa iyo intay alla rumaysayin baa wax badan tara magaaladii markii dhan walba xisaar lagaga sameeyey go'doomin markii dhan walba lagaga sameeyey ayuu ciidankii dhammaaye meesha magaalada lagaga sii tegey waxay ahayd inuu magaalada ka soo baxo dibadda ku dagaalamo dibadda uma bixine magaaladii gudaheedii buu galay qalcaadkii dadku ku jireen buu la galay isla markaana waxay gaansadeen go'aan ah inay isdhiibaan dabeetana dadkii magaalada joogaa ku qayliyo waxaa la isku dayay in la qanciyo fula baqa cararaya dee cidima joojin karto waa diideen waxay aqbaleen samarqanda magaaladii samarqanda la odhan jiray inay iyana dhiibaan dadkii markuu sidaa arkay culammadii iyo dadkii baa wada hadlay waxaa la yidhi war kuwani askarna maa cidinayna difaaci maysa aan isdifaacno aan wax iska celinno 70,000 ayaa markaa soo baxay oo dadkii magaalada degganaaya seefoodiiyo warmahooda qaato o yidhi waa isdifaacaynaa dadka kani waa dad xamaasade hayso laakiin maaha dad military trained ah dad ciidannimo loo tababaray maaha waa dad u nacay iyagoo faramadhan inta loo yimaado in birta la mariyo oo la gowraco waayo waxay ogyihiin magaaladii dhammayd ay isdhibteen bukhaara ahaydba sidii loo galay marka kollayba waa dhimanaysaan bay leeyihin idinkoo soo jeeda dhinta